السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسر دوادا برنامج gaar oo aanu idinka soo diyaarinay gudoomiyaha gobolka Daadmareer duqa degmada Oodweyne oo si wada jir ah xariga uga jaray mashaariic kala duwan oo ay xukuumaddu ka hirgelisay deegaanada gobolka Daadmareer sida xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee magaalooyinka Xaaxi iyo waliba jameecadka xubnahan ma soo booqday ee sharafta leh aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxay maanta xariga nooga jarayaan oo Ilaahay mahadiya xanaanadii ay golaha wasiirada ee madaxweynuhu noo soo diray ay si dhagax dhigeen oo dhamaatay oo lagu shaqeynayo imika wixii ka dambeeya shaqadeedii iyo hawsheedii qaban doonta oo baahi aad iyo aad u weyn ay u qabtay dariiqada Xaaxi oo wax weeyaan MCS yar oo mahal maqsin uu ka dhisnaa oo aan ku filayn bulshada joogta gobolka ama tuulada Xaaxi ay caafimaadka ama wax weeyaan goob caafimaad baahi weyn aad ugu qabtay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka hawsha ay noo fulisay macnaha noole weyn noogu fadhida wax weeyaan uu wasiirkii hore noo sii dhagax dhigay way noo dhamaatay maanta xariga looga jarayaa waftiga ballaaran ee noo yimina waxaan leenahay ku soo dhawaada ilaahay haydan xafido salaan kadib goobtan oo joognaa waxa weeyaan xanaanadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo u dhagax dhigay dariiqada Xaaxi taasoo ku haboon aan ugu hambalyeynayno uguna ducaynayno kuna soo dhaweynayno wax qabadka wanaagsan ee muuqanaya ee laga qabtay goobtan oo u baahnayd goobta goob ballaaran oo deegaan ballaaran meelaha qaar waa ilaa 12 kilomitir dadka ay xogtay imanaya waa deegaanka meelaha ugu ballaaran waa meelihii waqtiyadii ugu horeeyay ee deegaanka degmada Oodweyne ugu horeeyay marka waxaanu ugu hambalyeynaa uguna mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka caafimaadka wasiirkii hore caafimaadka ee dhagax dhigay waxaanu leenahay waa mahadsantihiin maamulkan meesha maraya ee dawladda gobolka Daadmareer aad baan u soo dhaweynaynaa halkan saaka waxaan noo farxad ah inaanu saaka hamigeygii aanu wasaaradda horumarinta caafimaadku in badan aanu ku taameynay inaanu MCH ka dhisno magaalada Xaaxi anigoo ah istuwa horumarinta caafimaadka gobolka Daadmareer halkan aad iyo aad waxaan uga mahadnaqayaa wasiirkii hore ee horumarinta caafimaadka Dr. Xasan oo noo hirgeliyay in ay halkani MCH noqoto noona dhagax dhigay maanta waa taa way furan tahay shaqaalii uu dhameystiran yahay qalabkii iyo dawadii iyo shaqadii way socotaa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa aan mar labaad wasaaradda horumarinta caafimaadka oo na gacan qabatay sida ay meeshan ugu furmi lahayd una shaqayn lahayd MCH kan dadka heeraha xayadna waxaan leeyahay adeega lacag la'aanta ee bilaashka ee hooyada iyo dhallaanka inay ka faa'iideystaan dadka heer Xaaxiyaad iyo dadka nawaaxiga heer Xaaxiyaad ee ku hareeraysan adeegaas oo lacag la'aan xanaanadu ay shaqayn doonto 24 saacadood oo 24 hours ka ay bixin doonto service-kii lagu talagalay safaruna hogaamiyaha gudoomiyaha gobolka Daadmareer aanu maanta xariga jarkeeda la sameeyay MCH-yada kala duwan ee magaalada Xaaxi iyo jameecada Caynaashe nasi wanaag waxaan ku soo horeynay magaalada Xaaxi MCH kan waxa dhistay xukuumadda garwadeenka ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi lagama dhisin hay'ad may dhisin waxa laga dhigay miisaaniyadda qaranka laga dhisay waxa ogtihiin in xukuumaddu cusub ee kulmiye joogtay mashruucan iyo mashaariic kala fara badan baa ay ka qabsoontay gobolka Daadmareer mashruucana ay runtii maanta miradhalkeedii aynu hayno gobolka Daadmareer maanta wuxuu leeyahay in ka badan 8 MCH horena wuxuu lahaa 2 MCH waa kororka 6 MCH waa garanaynaa waxa jira gitiitay jameecada Caynaashe Khaatumo Xaaxidan waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo iyadana iska saartay juhdi weyn iyo gelisay sidii uu furmi lahaa adeegan caafimaad ee bilaashka ee dawladnimadu waxa weeye 3 qaybood waa adeeg bulshada la soo gaarsiyo bulshada loo soo dhaadhiciyo iyo nabadgelyada la soo dhaadhiciyo runtii alxamdulillah gobolka weyn waa nabad
horumarinta caafimaadkana maanta waynaga kolba xaaxi furaynaa halka waxa ku xigay isaguna MCH ka Cabdi Faarax halka waxa ku soo xigay MCH ka Gatiitiri waxaad arkaysaa inaynu ka nasiib badannahay degmooyin iyo gobollo kale waddanka dadka reer Oodweyne waxaan leenahay u dhagan nuglaada awaamirta iyo go'aanada xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland lana shaqeeyo hadba maamulkeena jooga gobolka iyo degmadaba si aynu runtii baahida yareen tabina kale aynu runtii aynu sii dhameystirno aad iyo aad waxa noo farxada mashruuc dawladeed oo miisaaniyadda qaranka ku jira oo aanu aragno waa ka kow waxa isaguna inoo bilaami doona jeelkii iyo barasaabkii iyo uu ka sheekay doono iyo maxkamaddii intaas waa miisaaniyadda qaranka waxaan aad iyo aad uga ammaanaynaa aan uga mahadnaqaynaa haddaan nahay shacabkii guuda gobolka Daadmareed iyo gaar ahaan degmada Oodweynaba abaalka xukuumaddu gelisay insha Allah tacabkeedana way ka maari doontaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sanaa lillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala saaka sida ay sheegeen madaxda iga horeysay waxaan halkan ka furaynaa MCH-ka magaalada Xaaxiye ku kalena uu noogu xigaa oo jamaacada inaan ka furraa kana ku soo horeynay ku kale oo gadiitalay ina uu jira waa saddex MCH weeyaan saddexdaba waxa laga dhisay miisaaniyadda dawladda ayaa laga dhisay kolka waxaan leeyahay dadka jamaaca halkan jooga ee Xaaxi jooga de ha ka faa'iideystaan horumarka ay u keentay dawladdu ay u sameysay ka faa'iideystaan hana dayactirtaan oo ha ilaashadaan dadka gobolka aan madaxa u hay waxaan leeyahay iyagana war gobolkani Oodweyne xukuumaddani wax badan bay soo gelisay haddii ay tahay MCH-yada miisaaniyadda waxa kale ku jira xabsiga waxa ku jira garoon kubadeed iyo maxkamadda iyo waxyaabo kale halka waxaan leeyahay war xukuumadda ka faa'iideysto sidii loo maalayay garta oo de u dhagan nuglaada la shaqeeya nabadgelyada waad fiicantihiin oo waa dalku waa nabad inta kalena ku dara intaas ayaan odhan lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan madaxda gobolka Daadmareed heer gobol iyo heer degmo aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan ku soo dhaweynaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib ilaahay baa mahad iska leh ilaaha maanta inagu simay ee inoo suuro geliyey in aynu deegaankan ballaaran ee jabaacada caynaanshe oo laga hirgeliyey adeegan quruxda badan ee caafimaadka ee MCH-ka hooyada iyo dhallaanka laga hirgeliyey inuu maanta ilaahay inagu simo baahi weyn ay u qabtay oo aynu maanta xariga ka jarayno ilaahaas mahad iska leh waxaan kaloo mahad u celinayaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo bixisay fanka iyo dhaqaalaha ku baxay MCH-kan oo fikirkeeda waxaan si gaara ugu mahad celinayaa oo fikirkaas ka lahaa oo dhagaxa noo dhigay wasiirkii hore ee wasaaradda caafimaadka Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf uu xanuunsaday baa la yidhi ilaahay caafimaad sareecan ha siiyo waxaan kaloo mahad u celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay ee gacanta ka geysatay ee ay ka mid yihiin odayaasha deegaanka jamaacada caynaanshe iyo gudoomiyaha jamaacada caynaansho iswata oo aan mar qura iyo bulshada weynta jamaacada caynaansho loo kala harin oo qayb weyn ka qaatay oo dhulkan bixiyay oo wax kasto adeegahoo looga baahdo si fiican u soo dhaweeyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh waxaan hubaa inay xaruntani dabooli doonto baahiyo badan oo ka jiray deegaanka jamaacada caynaanshe iyo deegaanada nagu xeeran oo aan lahayn adeegan caafimaadka oo kale ay u soo doonan doonaan ay baahi badan oo ma garanaysaa ay qabeenna ay kaga bugsan doonaan tanina waxay ka mid tahay daadejinta adeegyada bulshada ee ay xukuumaddu daadejisay sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo wixii la mid ah oo dhammaantoodba laga hirgeliyey deegaanka jamaacada caynaanshe aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa intii ka qayb qaadatay deegaan MCH-kan quruxda badan inuu sidan u hirgalo waxaan kaloo si fiican si weyn ugu mahad celinaya iyagana shirkaddii fulisay
qandaraaska qaadatay fulisay MCH kan ama dhismaha laftiisa fulisay inkastoo ay waqtigu nagu yara dahay haddana alxamdulillah maadaama aynu maanta dhammaystirnay ilaahay baa mahad iskale aad iyo aad baan ilaahay ugu mahad celinayaa iyo intii ka qayb qaadatayba alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan kula dardaarmayaa dadka deegaanka jamaacada Caynaanshe in ay ilaashadaan qalabka iyo shaqaalaha iyo hantida halkan la geliyay ee dhaqaalaha faraha badan ku baxay laynoo huray ee aanay deegaanada kale inala qabin in ay dhaqaaleeyaan oo ay wax kasta oo looga baahdo oo ay u baahan tahay meeshaasi saxadeeda iyo shaqadeeda iyo nadaafadeeda iyo dhulkeeda intaba inay ilaaliyaan oo ay ku mintidaan ayaan kula dardaarmayaa waxaan ballan qaadaynaa inaanu ilaalin doono haddaan wadayaashii caaqilkii nahay gudoomiyihii deegaanka oo jamaacada Caynaanshe oo hawl yeeshay Salebaan Xirsi Geelle salaan aan kaga wakiilahaa baan iyana idin soo gudbinayaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مكان وحن كوريتشينيا حلبان عمبي عقل كل هسي شيء كل تال كل ما تروح له يمي ومدحنا وبرساب كوفتين وجابين أيوه أنا نقول كل سعودي هذي أنا ما يركو ولي ما نجي ما يركي ولا ديجان كلها هي حملة كلها كسعودة بقى قبل كا إن حرق اللي جشرو MCH كان تولد اللي له ضع جماعة عيناشي سلا أوجد كل وغضب كم إذا الرماء بالشدة أنا قلت يلو في ولد يعني هن أدبن ودنيني قليها عقل كثير بودي هوش كقيب قادني يبون كم بدنا مركا دي العيد كلي هي حويان أرنتها سوى الرماء كم إذا غضب كم إذا الرمي بالشدة ولا فلي إذا أنا هوش إذا قعن كل هاي الرماها لقبل سمعنا يا سنة بتشي تسوى رمتية لكن وحياة بس قول ميزن مودة أنا والله اسمه سيجناه haddii uu leeyahay cid walaal ka hawl gashay cid walaal kuma koobay qaran kooda ma ka hawl galo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ma ka qayb qaatay in aanu maanta halkan jamaacada Caynaanshe aanu MCH-kiisa laga hirgeliyay xukuumadda garwadinka ee Musabbix iyo wasaaradda horumarinta caafimaadku ay ka hirgeliyeen inaanu maanta xalay ka jarno taasoo adeegii hooyadii dhalaanku uu u dhameystiran yahay xaruntan haddii shaqaal noqotay haddii qalab noqotay haddii daawo noqotaba intaba ay u dhameystiran tahay dadka deegaanka waxaan leeyahay jamaacada Caynaanshe oo kaliya ka faa'iideysan maayo boqolaal tuulo oo yaryar baa ku xeeran oo aan adeeg caafimaad u jiray marka hore 100 kiiloomitir marka aad iyo aad baan xukuumadda ugu mahad celinayay wasaaradda horumarinta caafimaadka in ay nagala shaqeysay inoo dhisto xaruntan caafimaadka aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka alxamdulillah maanta waxaan ku faraxsanahay in furitaanka labaad barasaabku sameeyay tayada taagta annaga hore u soo furnay tuulada xaaxi kana yahay kii labaad wax qabad ka muuqday balaarani muddo 18 sano Soomaaliland jirtay oo markii ugu badneeyay xukuumadda ugu badneeyay miisaaniyadda qaranka gobolka Daadmareer wax badan kaga qabato isbitaal MCH kan wuxuu kamid yahay miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa laga dhisay hay'adiin oo may dhisin la xajacala gaar ah inuu ka leenahay maadaama cashuurtii dadka laga qaaday ay runtii dib ugu soo noqotay annaga ka maamul degmahaan waxaan mar walba adeegayga bulshada yahay soo daadejinta adeega arrimaha bulshada dawladda dhexe soo daadejisa waan ku faraxsanahay dawladaha hoose qorshayaashooda waxa weeye wixii MCH ka hooseeya inaan anagu maamulno oo aan la shaqeyno si wacan la shaqeyno u dhow tana waxay noo baahi tobanka magaalo ku xeeran magaaladani waxay naga daboolantay baahi caafimaad wadana gudoomiye oo hooyadii dhalaanka oo marka horena u tagi jireen Burco iyo Oodweyne laakiin hooyada maanta umulaysa ama hooyada nafaqadaradu hayso ama hooyada ilmaha nafaqadaradu hayso wuxuu haystaa goob adeeg oo caafimaad oo ugu dhow dawladnimaduna waxa weeye marka adeeg caafimaad iyo adeeg waxbarasho laga helo tuuladii waxaan labadiba maanta ugu ahaysaan reer jamaacada Caynaanshe idikoo runtii caaqilka iyo gudoomiyaha si wacan iyaguna oo hawl galay laakiin meesha in dhismaha iyo kharashka iyo shaqaalahaasi inay dad beeraan maaha waa in dadka sida hore guryaha la iskaga haysta maaha waa in lagu xidhnaadaa hooyadii dhalanku ku xidhnaataa MCH oo numberka qiimeynta wasaaradda caafimaadka sameeyay oo kale ay sameeyaan laga dheehdaa rasiijarkiina dad badan
oo baahidii aynoo qabnay ee ayn ku taamaynay laga dareemaa foomamka bugaagtiina aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin waxaan leeyahay mudane madaxweyne waan kaaga mahad celinayna waxqabadka ballaaran aad ka muujisay gobolka daadmareedh iyo degmada Oodweynaba oo mid shacabkiisa iyo bulshadiisuba ay ku og tahay oo markii koowaad ay intaas miisaaniyad intaa leegay ay gobolka gashay annagoo rajaynayna kuwa dambana inaan wax badan ka heli doono annaguna aanu la garab taagannahay xukuumadda garweynka ka tahay wixii hiil iyo hooba taageera aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa barasaabka gobolka daadmareedh ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala nabadayna siiyey nimcooyinka badanina siiyey maanta dee ku jiro ambaan haysan raxmadaha roobka ay noo lisay ilaahay baanu mahad celinaynaa intaa kadib waxay maanta farxad inoo ah in halkan ka furo MCH-kii jamaacada Haynaash saaka mid kalaan soo furay tu kalina waa diyaar oo gadiitalay weey xaaxi waan soo furay tanna waa tii labaad saddexaadna waa gadiitalay saddexdaba waxa laga dhaqan galiyay amba laga sameeyay miisaaniyadii dawladda maxnaha dawladda xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi ayaa fulisay oo kharash kan bixisay aad baan ugu mahad celinaynaa waad baan ugu faraxsanahay waxaan maqli jiray MCH-ka iyo dhakhtarka iyo hay'ad ba samaysay iyo laakiin tani waa xoolaheeni oo si fiican noogu maamulay xukuumadduna ay maal gelisay horta taa inay fahmaan baa muhiim ah dadka reer Oodweyne ayaan oran daadmareed gebi ahaanba way ka badan yihiin MCH-yada inta Oodweyne ka samaysani inta waa laga yaabaa 8 MCH san warbixinta ku hayo ayaa Oodweyne ka samaysan waxa halka ka muuqata in Oodweyne loo raxeeyay amba daadmareed loo raxeeyay gobolka wax weyn in la qabtay wax badan oo kalena waan rajaynaynaa miisaaniyadda way ku jirtaa waxa kamid ah xabsigii waxa kamid ah garoon ku badeen iyo wax kale waxyaabo kalena waa suurtagal inay ku jiraan intaan ogahaysay labada waan ogahay maxkamadii taana waa jirtaa inta waxa laga maal gelinayaa waa miisaaniyadda dawladda yaa laga maal gelinayaa marka waxa weeyaan dadkan anigu waxaan leeyahay reer jamaacada Haynaashe MCH-kii waa kan iyaga faraha loo geliyay waa ka cid inagu maamulaysid dawad khaatirtii iyo cidii wasaaradda caafimaadka ahayd isku duwaa inaad waxaan igu dardaarayaa ilaashataan inaad dayactirataan iga aad u ilaashataan aad wixii looga baahnaa ka faa'iideysataan oo de dumarkii caruurtii ay ka faa'iideystaan waxaan madaxweynaha iyo xukuumaddiisana waan uga mahad celinaynaa waxqabadkan uu daadmareed soo galiyay waxaan leeyahay wax badan waa kalena way noo dhiman yihiin mudane madaxweyne waxa kalena waxaan rajaynaynaa inaad nala qabato wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii gaarka ah barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Muuse Salebaan Maxamed waa habeyntii iyo isku durbaridkii injineer Sayid Maxamed Cumar tan iyo intaan barnaamijka lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waliba dhaafsiisaniyo wadayni noo dhismiyo waliba dhaafsiisaniyo wadayni noo dhismiyo meel wacan qaar marayo